walaalayaal nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaynu ka hadlayno waxaa cid kastoo muslimi ay og tahay oo yaqiinsan tahay cid lagu daydo nabigu inuu ugu mudnaa calayhi salaatu wasalaam bal alla subxaanahu wa tacaala waa ina faray oo waxaa la ina faray inaynu ku dayanno. maxaa lagaga dayanayaa? waxaa lagaga dayanayaa bashar inala mida buu ahaa. waxa keliya uu inagaga duwanaa ee uu ina dheer yahay in alla subxaanahu wa tacaala uu u xushay waxyigiisa. in naxnu ilaa basharu milukum walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih. ambiyadu waxay odhanayaan bashar idinla midaanu nahay. yaakuluuna kama taakuluun wayashrabuuna kama tashrabuun wayatazawajuuna kama tazawajuun wayaxtaajuuna kama taxtaajuun. waa bashar. baahiyaha aynu leenahay dhammaantood bay leeyihiin, laakiin waxay nagaga duwan yihiin waxyiga allaa loo soo dhiibay. taasaa keentay in lagu daydo. waxaa lagaga dayanayaa majaalaadka iyo qaybaha noloshoo dhan oo kala duwan. ganacsadaha ku dayanaya, ka cibaadaysanayaa ku dayanaya, aabbaha ku dayanaya, xaaskaa ku dayanaya siduu xaaskiisa ula dhaqmayo. nooc kastoo nolosha ka mida waxaa lagaga dayanayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam, waayo nabigu wuxuu tusaale u yahay, wuxuu dhaqan gelinayaa wixii sharcigu inaga doonayay qaabkii ugu wanaagsanaa ayuu nabigu u dhaqan gelinaya calayhi salaatu wasalaam. ilaahayna wuxuu u xushay bashar kuwii ugu qiimaha badnaa ayuu alla subxaanahu wa tacaala u xushay oo nabiga la dhaqmaya calayhi salaatu wasalaam, oo nabigu uu saameeyey, oo nabigu uu tababara calayhi salaatu wasalaam. waxaan maanta soo qaatay mowqif iyo dhacdo ka mida dhacdooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaan maanta soo qaatay mowqif iyo dhacdo ka mida dhacdooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa maalmaha baraha bulshada inugu haystay dood ka dhex socota xididka sida loola macaamilay, oo waxa weeye sidee loola dhaqmayaa, oo gabdhihiina sodohihii ay saska qabaan, inamaduna sodohihii ay saska qabaan, oo xididka sida loola macaamilo ee loola dhaqmo ayaynu maanta mowqifkaa u soo qaadanay. iyo wanaagga marka la sameeyo sida waxa uga dhalanaya uu yahay wanaag. hal jazaau lixsaani ila lixsaan. haddii la yska shakiyo, dhufays la isu galo, la isdabagelayo, la isbaadhayo, la isbasaasayo, ceebo iyo xumaan la raadinayo, waxaa loo dhacaya qurun baa loo dhacaya. laakiin xagga sharafta iyo karaamada iyo gobonnimada iyo wanaagga iyo guudmarka haddii lagu dadaalo, wanaagunbay hawshu ku dhammaanaysaa dhinac walba. inanta lama yaabani sodohda ka shakisane isle odaygay kugu diraysaa, gurigaagiibay duuminaysaa. duruuftan aynu maanta ku jirno la yaabi mayno. sodohda yaaban ee inanteeda ka yaabanna inankeedu qabo iyo sida ay ula macaamilayso iyadana waxa weeye lala yaabi maayo, waayo isbeddel badan ayaa waxa weeye mujtamaca ku yimi. kalsoonidii oo dhimatay, shakigii oo batay, waxa weeye qiila waqaal, warka badan ee la kala qaadanayo iyo waxyaabaha la midka ah ayaa aada iyo aada u batay. nabigu calayhi salaatu wasalaam sida caadadiisu ahayd, imaamu albukhaari iyo muslim ay soo warinayaan, wuxuu soo booqday inantiisii faatima radia allahu tacaala canha oo waa aada u jeclaa, oo nabigu uu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, faatima waa xubin iga mida, waxa ka cadhaysiiya anigana waa iga cadhaysiinaya,
waxa shaki geliya anigana shaki buu igelinayaa waxa dhiba aniga ayuu dhibayaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay sayidatu nisaa'i alcaalamiin dumarka kowkan jooga tii madaxda u ahayd qiimo weyn bay nabiga ugu fadhida calayhi salaatu wasalaam ubadkiisa waa ka jeclaa uu soo booqday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u soo booqanayay waa inantiisiiyo u dhalay waxay tusaale u tahay waalidka inuu ubadkiisa daryeelo garab istaago markay la joogaanna uu daryeelo haddii ay ka tagaan oo guryo ay yeeshaanna aanu u qaadan dad la mid oo guryo leh ee markaa lafteeda uu la socdo xaalkooda oo tale iyo tusaale iyo garab istaagba uu ku garab istaagoo ka war doono nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka war doono wakhtiga uu u tegey waa wakhti la qiyaasaya guriga in la joogo wuxuu u tagay nabigu calayhi salaatu wasalaam xilligii gadiidkae guriga la harhsanayay wuxuu weydiiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam in adeerkaa meeyi ayna kaana bnu camik in adeerkaa meeyi waxaana ilma adeera nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo caliyu bnu abi aalib baa ilma adeer ruma ah laakiin nabigu inuu iyaga isu soo dhaweeyuu doonaya qaraabo marka la eegaya adeerkaa meeye ayuu xaalku noqon lahaa waayo caliyu bnu abi aalib adeer in adeer ruma u yahay faatima laakiin afka kuma wanaagsana wuxuu nabigu soo qaatay mid ku dhow dhow ninkaagina kuma odhan waayo maanta wuxuu dareema nabigu xaaladdu inaanay caadi ahayn xilligaa hadduu guriga ka maqan yahay wuxuu doortay in adeerkaa meeyey buu nabigu doortay calayhi salaatu wasalaam adeerkiina waa ka daayay nin baa mar aan maqlaya rag ay xamanayaan ay lahaayeen isaguna waa joogay waxay ku dacayadeynayeen nin yaro weyn buu ahaa inan yarna waa guursaday waxay arkeen telefoonka markuu ku hadlayo isagoo ku idhaahda adeer maxaa u baahan tahay waa xaaskiisa waxay ku idhaahdeen dee adeer haddaad ugu yeedho meesha xaaslidaa ma taallo ciiba isu hungurori mayso ee adeernimada ka daaya wax kale ku bedel in adeeryo in abtiyo wax kale ku bedel nebigu ma isticmaalin adeernimo ma isticmaalin calayhi salaatu wasalaam way u jawaabtay waxay ugu jawaabtay aniga iyo caliyu bna abi aalib waxbaana dhex maray bay tiri kadibna waanu isu cadhoonna guriga ayuu ka baxay oo nalama seexan meelahaasuu hurdatay oo xilligii la hadhsanay faatima radia allahu tacaala canha way cadhaysan tahay oo odaygeedii bay u cadhaysan tahay isaguna cadhuu guriga uga tegey aabbaheed baa u yimi oo ah madaxweynihii dalka ka talinayay oo ah rasuulkii ummadda oo kelmaddiisa aan laga daba hadlay way beer la xawsan lahayd iyadoo welibana og sida uu u jecel yahay waxay jaanis u haysatay inay kaga bogato cadhadeeda oo ay ku miista caliy bna abi aalib radia allahu tacaala canhu laakiin gobonnimaday ka raacdo waxay ku dhaaftay waxbaana dhex maray waanu isu cadhoonnay waa naga tegay intaasay ku dhaaftay faahfaahin may gelin aargoosi may samaysan jaaniskeeda kamay faa'iidaysan waayo waxay og tahay aayaha dambe natiijada waxay ku dambaynaysaa galabtaba inuu guriga imanay markaanu jaamacadda madiine dhiganayna ayaanu annagoo ardaya baanu waxaanu kala dhex gallay oday iyo islaam baanu kala dhex gallay jaarnala ahaa dabadeedna gabadhii aad bay u cabatay odagii waxba ulamay hadhin hadday dhaqaalo tahay wixii oday iyo nin iyo xaaskii dhex mari lahaa meella umay badbaadin midhaa saacad bay hadlaysa 3 wadaad baanu ahay waanu dhegaysanay dumarkana waxaa ugu muhiimsan in la dhegaysto laga sii daayo caburintaa ugu daro saacad baanu dhegaysanay odayguna wuxuu ku maqan yahay cadho
iyaduna albaabkay ka soo xidhatay gelikii dambana odaygii baanu ugu tagnay magaalada masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam baanu kula ballanay xaramkii markaanu la fadhiisanay buu ihi culima waa istaaniseene waxa ay sheegaysa waxba kama jiraane haddaan u tegaya guriga anoo aan gelin bay saa iga hor imanaysaa buu ihi iyadoo jaraynaysa oo iga haybadaysanaysa hadal badan buu shugay natiijadu waxay ku dambaysay sida uu sheegay gelikii dambaanu la hadalna gurigii baan joogaayo wuxuu ihi balana ma jirto wixii ay shubaysana waxaan is idhi gabalku guriga ugu dhici maayo inay hadashay doonaysa laakiin wax wanaagsan maaha mar haddii guriga dal laga leeyahay wax lala hadho weeye faatima radia allahu tacaala canha faahfaahin may gelin waa qodob wanaagsan waqfada afraad ama shanaad nebigu calayhi salaatu wasalaam waa la qaata maaha sida waalidiinta qaar ay sameeyaan aabbayaasha iyo hooyooyinka iyadoo aan uba ashtakoon bay ku odhanayaan wejigaagu waa bedelaya maxaa kaa siiya wax badani ma jiraane waanu iskhilaafnay waanu isu cadhoonnay muxuu ku yidhi maxaad ku tidhi maxaa dhacay muxuu kugu sameeyey miyuu ku dhurbaax miyuu ku aflagaaday dabadeedna la qodqodayo laga yaabo iyadu inaanay diyaarba u ahayn ay wax faahfaahiso waalidku uu qodqodayo wax baadhayo mushkiladuu faragelinayo wax alla asturay uu doonayo inuu dibadda u soo saaro cidda ugu badan ee ku dhib mudanaysa marka xaalku faraha ka baxana waa waalidka waa waalidiinta wey nabigu calayhi salaatu wasalaam halkaa uma dhaafin wuxuu doonay nabigu calayhi salaatu wasalaam wiilkii uu sodoga u ahaa caliy bnu abi aalib halla ii doona buuli waxaa la yidhi masjidka u hurdaa nabigu waa u yimi lugihiisu ugu yimi calayhi salaatu wasalaam waa ka weynaa daahan waa ka weynaa in badan buu ka weynaa nabigu calayhi salaatu wasalaam oo waa dhali karay nabigu calayhi salaatu wasalaam macallinkiisii nebigiisii buu ahaa mar saddexaad wuxuu ahaa sodog buu u ahaa oo inantiisuu qabay meel uma fadhiisanoo ma odhan ha ii yimaado ee nabigaa ugu tegay cagihiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tegay isagoo go-i intuu ka dhacay masjidku ciid buu ahaa ciiddii ay ku dhegtay buu nabigu u tegay calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxuu gudagalay nabigu inuu toosiyo ciiddana ka masaxo wuxuuna u sameeyey naanays abu turaab aabbihii ciiddow waxa weeye istaag oo hurdada ka kac mar haddii ciidi ku dhegan tahay waxaasoo dhan maxaa laga faa'iidaysanaya waxaa laga faa'iidaysanayaa tacaamulka iyo dhaqanka wanaagsan ee waxa weeye dadka ka dhaxeeya isaga ayaa wanaag dhalaya ilaahay wuxuu leeyahay hal jazaau lixsaani ila lixsaan idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyun xamiim wanaag haddaad ku dhaqanto dulqaadato karaamo iyo xishmad iyo sharaf aad ku macaamisho waxaa kaaga soo noqonaya taa mooyaane wax kale ma aha ilaahay baana kitaabkiisa kuugu ballan qaaday xididka in la ixtiraamo si wanaagsan loola dhaqmo waa midaynu nebiga kaga dayanayna calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaq buu u lahaa inuu caliy bna abi aalib la xisaabtamo inuu canaanto inuu yidhaahdo maxaad uga xanaajisay laakiin ma samayn nebigu calayhi salaatu wasalaam xaalka ayuu qiimeeyey dabadeedna xal guud buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey wuxuu gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii loo keenay maariyata alqibdiya masar looga soo hadiyadeeyey wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam masar baad furan doontaan xilli xilliyada ka mida dabadii baa la furtay xilligii cumar bnu lkhadaab waxaa uhi waa xidida hala dhowra buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa daldhan oo gabadh addoona looga keenay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiino joogay ee uu udxiyo sameeyo ama xoola u gowraco hilibka markuu qaybinayo wuxuu ka bilaabayay khadiija radia allahu tacaala canha
oo dhowr iyo 10 sano sii mootanayd oo xaaskiisa ahayd saaxiibadeed maaha qaraabadeed saaxiibadeed ha loo geeya buu nabigu odhanaya calayhi salaatu wasalaam iska daa xaaskaaga ama ninkaaga ehelkiisa iyo qaraabadiisa wuxuu danaynayay saaxiibadeed buu danaynayay oo wax nabigu inoo jideeyey calayhi salaatu wasalaam in xaalad abuur la sameeyo ama mushkilad la abuuro ama waxa weeye cadaawad la iska aamino waxyaabahaasoo dhan wax sharcigu inoogu yeedhaya ma aha wuxuu inoogu yeedhayaa xagga wanaagga iyo karaamada iyo sharafta iyo gobonnimada iyo guudmarka iyo in laysu dulqaato in ceebaha la asturo in wax laysu soo jiido sharcigu taasuu waalid iyo ubadba ugu yeedhayaa